caawa oo ay bishu tahay 15 bisha tobnaad anagoo ah guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka markaanu aragnay falalka ka dhacay gobolada dalka ay kamid yihiin gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco Gabiley iyo meelaha la midka ah waxaanu soo saarnay qodobadan hoos ku qoran anagoo u raacnay xeerka anshaxa iyo xalinta khilaafaadka qodobkiisa 11aad ugu horeyn xarafka xa in aanu ganaxnay labada xisbiye kala ah wadani iyo kulmiye min 10 milyan oo shilin Soomaaliland ah sidoo kale markaanu aragnay isla qodobkaas faqradiisa ta waxaanu ka joojinay safarada iyo socdaalada ololaha u eeg ee ay ku jiraan labada xisbi ee wadani iyo kulmiye sidoo kale isla qodobkaas faqradiisa ja markaanu aragnay waxaanu ka joojinay in inta ololuhu uu bilaabmayo ay sameeyaan isu socod haddii ay taayeeri waayaan waxaanu ka xandhibi doonaa oo aanu ka joojin doonaa maalmaha ay xaq u leeyihiin ee ololaha doorashooyinka sidoo kale xisbiga UCID iyo ururada kale si lamid ah ka joojinta kuwaaba aanu ka joojinay iyagana waxaanu ka joojinaynaa inta ka horeysa xilliga campaign-ka doorashada loo asteeyay in ay sameeyaan isu soo baxyo iyo dhaqdhaqaaqyo u eeg ololihii doorashooyinka haddaba cidda u hoggaansami weyda qodobadaas aan soo sheegnay waxa ay waayi doontaa mid ka mid ah maalmaha ay xaq u lahayd ugu dambeyn sidii hadda ka horba aanu uga dignay waxaanu mar labaad uga digaynaa shaqaalaha dawladda ciidanka qaranka ciidanka booliska iyo gaadiidka dawladda in lagu ololeeyo ama ay ka qayb galaan ololaha iyo isu soo baxyada lagu taageerayo xisbi ama urur mar kale waxaanu ku celinaynaa oo idin sheegaynaa channelka naloo soo marinayo cabashadu in ay noqoto sidii hadda ka horba aanu idin sheegnay mid qoraal ah cabasho kasta oo aan loo soo marin in la soo mariyo task force-ka ama xubnaha xisbiyada iyo ururada u jooga komishanka doorashooyinka isla markaana aan qoraal iyo cadeyn lagu soo lifaaqin guddida anshaxu wax talaabo ah kama qaadi doonto mana qiibayn doonto